السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقائق وإذن سلامي دل يدي ودمشق نقدر ونسون بسود هذا ومركل إيمو قال عصب وحرجينا سأنا وعفات قبل هذه لا دو عفات قبل ما تيجي إلى جوجه هي Queen of Views الله بقرطة 1 day 1 million كقرتي ويبقى ساعدوا كده هذا سودو بعد ما هي يعني مسوال runtii horta waxaa tahay gabar dahabi ah aniga waxaan dhigi karaa waxaa tahay dahabi waxaa lahaa qofka markii aad aragto ka farxad gelin karo tusaale ahaan rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu mar walba lagu duceystaa ama waa la dhihi jiray dadka hore naga horeeyay qofka markuu arko qof inuu ku farxad gelin karo ilaa dadka soo gashata xaaskaaga markaad aragto dib ku dholo cadeyso qalbiga ku qaboobayo adigana saas oo kale tahay boqolaal qof aad farxad gelisaa aad baad horta u mahadsan tahay maadaama aad iga ogolaatay in wareysigan caawa aad isiiso dadka inta badan inay ku helaan aad bay u adag tahay maxay adiga ah gabar qaali ah oo weli marna isku diyaarinayso atrisho okay intaas waxay ahayd kaftan soo dhawow waxaa jiraba maanta ama buuq taagnaay wax soo socday afrikaadooyin fara badan waxyaaba badan labada dhinac ka wada arkaynay intaan horta intaas guda gelin waxaan ku weydiinayaa maxaa keenay dagaalkan idinka dhexeeyo adiga iyo Catoosh maslaxo iyo Fartuun dagaalkan horta waxaa keenay qoftaas horta aad u afdheertahay qof walba ku dhageysan inta fiina iska dhaafay tan kale aan la yaabay dagaalkan qof oo shalay isku aragnay meel make up oo u labsanid arooskeeda aadaysay subaxii waxa arkeedo ceynayso xala arooskii joogtay ugu soo dhaweey subaxina way ceysay walaalo ummad islaameed ka foqaanaha hebel uur leedahay hebel saana leedahay uurkana xagaa galaadahay adiya adima uureysay wax idin horeeyay kala ma jirin wax in hore ma gabadhaas la amaan si ka foqreera islaameed ka foqaada aroos ee cusub wayahay adiga iyo waxa isku dhignaay maslaxo waxaan iskugu imaadeen maadaama boqorada darteeda isugu imaadeen wayahay maxaa keenay marka maanta inaad Catoosh weerartaan adiga iyo Fartuun waxaa keenay horta waxa isdhaaw ku soo ceenay maadaama aan isoo ma arkin laakiin waalidkayga aan maanta boqol qof ay u dhigay social media iska aytama ha aytan maanta hadii ani oo ka lahayd wallahi uma soo jawaabin mana safiican laakiin waalidkay ay sameeyay afka waalidkay ku ceysay iyadoo dhigayso inuu ku raalkiisa horta balan ah faantay inteeda kale Catoosh asaagar daran naagtiisa ma cishanayo qofku ninka ragga naagtu ku qabo inuu cishto akhlaaq ee leedahay naagtiisa ay ka dambaysan ninkeeda asayaabo bushgareno inay qof walba la daashan faantay wayahay maanta Catoosh qaabkii isugu imaadeen xagee ku wada kulanteen inteedna ku weerarteen Catoosh maanta waxa isugu imaanay WhatsApp-ka iska soona saayida soolay wuxuu isoo diray lacag isoo diray oo ifisiya maya lacag oo sawir inta picture laga qaaday oo lacag soo diray lacag soo waa fiiri maxaa ku qosla maxaa ka wadaaraha biskooladu isoo diray biskooladu isoo diraabo waa la yaabay ku qosla dare markaas wuxuu isoo diray kan sawirkiisa ha farxan qaroole sawirkiisa isoo diray waa qosle abtigay maaniga balmisaan ninka magaalada gareeyay qof kalba dukaan salaamaanta wax dhanay bahaleedo okay intaas darteeda ma ku soo weerarta marka aad u imaadeen intaas darteeda yani hanjabaad wuxuu ii soo qoray yani iska jir amal anu ii handada aniga muqdisho soo ii handada soo ii yarso aan ii handada waay okay qof la soo weerar qof kale ka jiro ani qof kale habaa sido oo magaalada ku cusub oo magaalada waxba ka ahayn dadka masaakiinta habaacsada laakiin ani meel xun oo lagu hala galan faantay safiican intuu ani ii soo diro nin abtiga uu dhaha iska jir magaalada ninkaas inuu ciraab igu balan eebo uu ii soo adeegsaday okay wayahay intee markay ay ku kulanteen adiga iyo Fartuun ani asaga meeshiisa u weerarnay ani Fartuun ina akhlaaq barna u baxna faantay akhlaaqna soo wayahay gacan qaad ma ka dhacay oo Catoosh korkiisa ma taabateen wax ma ku dhufateen ama mis aragteen yes waa is aragna marka meesha kornay studios u tagnay Fartuun horta soo socotay ani iyo wiil kale ahayn gabar kale studio markaas aan u tagay uu arkaybo qolku isku soo xidhay studio sidii wuxuu carar meesha qaraxa ka socday qaraxa bataale asoo وأيام ماشي بتجيني فاكوا كبراسنا وقولك سكسائر فرتونا أنا إمات أبارك بعدي أنا كيابن مركز قصلك وكش فرتونا حريفة واي سفيان قصل ولا نكتب عشدي إذا قصل حكواتي الباك وحنا أول الباك وحنا وفر سوق فرق فرتون ذلك كفري هاي قصل شيء وأنا عطاش يورن حاجري بلا الكلام فرين قصل وكش سفيان مركز قصل وكش حكواتي
bombal camla oo garacdo كو markuu garaad oo soo soo qabtay inuu ku dhufto rabe asaga dhanaa ku dhahay naxtinta shaati dhan laga jeexay wuxuu sameeyay waa qoobe guriga isku soo xir u soo bixay اوكي adinka atoosh intaas oo ku soo diray aa u soo baxday aa ku weerartay ani waxaan wax kale ku dhiman ku afrigadeen asaga waxaa rabay horta ko inta iga cararan ani ko waxa uu tagay laba mid sababtu uu hanteed inuu sheego كو why aan hanteed inuu email ay qofku ku hanteeyaa why inuu qorto sababta inuu isheega uu soo day markaas ninkii afakada bay أنا دجال أم السعنين. أنا دجال أم السعنين أنا ودي صوته أنا هو هنددا بس أنا. ويا فرتون مركي لقى صوتك هذه كل كيس ما تعطى ما كله فتاي. أنا أنت كل كيس عقول فنا وبعرّي. هذا مستعبنين. أنا أسئلة هاد قاعد اسم جالسين. ها أوكي ويا هاي إن أديجا وحكسوا أفلق الديسي مصلحة سلا الشتاي وحين أفلق الديسي أديجا هو يدا. خاص دمر أسرتهين. لأن أنتوا عشلا وحودها نايا إن وسوى نايا دجالك أباهنها إيش ناكتا سكدولي صناعة كوكينا ساوا إيه عيتم إبلاي سيدو كل رقمة. ويا عدين ما كهي سعدي أسرق كلها هايو. يس عدين ما بدن تليفون كيسا ناكتس كسرح عيتم يسي. عدد كده أو تاب كيسا لمبر كيسو يا ناكتس كسرح عيتم يسي فانت أسرق عيتم هاي عددنا وعليها هاي. أكسر. ويا عدين ما جت أفلقات أدو جيستي. كهر أنت سن عطوش عطوش كل إيمانين مصلحة ما جت أفلقات أو جيستي معنا قف هدي القف وكل جو أنا جوانا كان قف كل جو وارنا بقى قف كل جو هذا كل جو لكن إسلامك أنا قف كم عايق مسوي جوابي كرو إلا إنه أنا فعلي قاعد كموي هذيك قبل أسكهر من كديسي أما أفلقات ديسي أفلقات أفلقات ديني نحادا قبل يعني ويلا عنتك حارنا على هاي قبل إسلام يتكفق على فانتي هرت هبينكاس أنا ربعنا كهالله هبينكاس أنا جواجوجي مهير كواجوجي بخارد استلك كدنا واجوجي horta gabadha waa kaligeeda maanta hooyo oo u nool malahan laakiin waxa garab istaagay Soomaaliya oo dhan wixii fanka ahaa kulli meesha waa la wada imaaday aniga waa joogay jamuuna waa joogay najiib waa joogay boqol qof aan ku soconay meesha maslaxo aniga way soo wacday waxay tiri boqorada istaalka arooska ina aad marbi markaas dhahday shaqan ku jiro waa soo istaagay banaanka oo soo baxay abaayo maxaa kugu dhacday ya ka xanaajiyay waxay tiri rag oo dhan waa la cazumay ninkeyga Atoosh ma cazumin اوكي waxaan dhahay hal gabar waayaan dhahay imtixaana u soo dhawaan dhahay aroos ay galoosa wiilka ay guursanaysa maanta inta familkiisa ma joogan magaalo kale ay joogan iyadana intay joogtaa maanta waxa laga yaabaa aan dhahay inay u baahan tahay garab istaageena ee uma baahnaan dhahay in anaga ku xanaaqan ama baa xagano wada jii maslaxo Atoosh iyo diiban daa uu maqan yahay daad waxaan dhahay adiga iyo Atoosh isoo raaca hal mar aan wada tagayna aniga maslaxo Atoosh jamuuni najiib wax yar ay naga horeeyeen waa isla soconay waxay dhaheen aniga iridan taaganahay irida galaan dhahay waxba ka cabsanayna meesha taga gabadha aan u soo qaraxeeno aniga waa la bistay bawran raacay bawran kiristay wax badana asxaab aruurin waa wada tagnay awoodo u yeelno weyn gudaha inaan galno micnaheeda ma ahan inaan ka xanaaq aniga isoo wacay boqorada salka boo waxay dhaaday ma fadhiisatay maya ma fadhiisana ma dhihi karin fahamtay waxaan dhahay haa abaay waa fadhiyaa meel fiican aan fadhiyaa anaga dhan waa wada joognaa waxaan sugaynaa adiga aragtidaada iyo inaan kuu qaraxayno hal marna isu tagna labadeena ma salaamin fiidoon isma soo duubin dadka joogeen waa ku jira sagaal saaxiibin ma ka soo tagay fahamtay marxaladaas ay gabadha ku jirtay waxay ahayd marxalad u baahan in iyada loo garaabo ee ma ahayn in horta meelaha laga soo xigto qaladeen lagu tahay horta midaas ma fahamtay aniga maanta maslaxo waa ka magac weynahay da ahaan waa ka weynahay haddii loo qof meel la fadhiisana maanta iyadoo fadhiso waxay mudan tahay kursi inay iga kacdo si fiican soo maahan waana ka mudanahay marka saastaan ani meel malii fadhiisina ma dhahay saa maliyan lama dhaho marxaladda gabadha ay ku jirto waxay marxalad iyadaba u baahan in loo garaabo sababtoo maanta dharaa loo gelin inta laga soo bedelo inta keen ku jirtay marka taas maslaxa haddii aad ku haystid boqorada istaalka annaga habeenkaas waa joognay hal marna kaamirada qofna waa aragtay malahan mana dhihi karno maxasna lagu sameyn waaye ma dhihi karno boqorada way mudan tahay hambaliyo kun jaraan ku leenahay cid ka xanaaq karta habeenkaas ma jirto qof walba wuxuu mudan yahay adiga inuu ku garabo garab istaag ku muujiyo sababtoo ah gabar kaligeed ayaad ahayd taas horta maslaxtaasaan ka leeyahay marka adiga markaad fiidiyooga usoo duubayso ka celinaysay ama erey aflagaada afkaaga ka baxday ee iyada qaar u aragtay kugu soo aflagaadaysay ilaa qof hooyis ayada kama bixinaan afkii waxaa dhahay dhan uu controlay waxa ku hadlaa ani boqol mar ka fikiraa waxaa dhahay gabadhaas farax ka qaadaa dhahay meesha waxa igu waxa uura lahayd iyo saana lahayd iyo idima uureysay aad u akhlaaq xun taan fahamtay qof gabar inay ayso oo hooyada kamatay aadaalo
وحنتي because مصلحة بهوي وأنفعنتي سفيان هذا بقولي تسوي كل ما كرنا كمان إنه قف عيسو هذا أقلتها أقلتها أخلاق سكوية لا بس markaas ana haday cilad wax dhan ahalada iska aamusalaha isla markii fiidiyowga jawaabta ma hooyada ku caysay isla markii jawaabta hooyada ku caysay waxaan xana jooha soo mana dhaafaa mar alaal meesha joogto cid ka cilinaysa maya aniga gabar wala sheekahay ma fahantay wanaagan isku baranay horta inta noo shaqeyn dagaal gashay habeen waxaan arkaa lagu shabuumayo madax laga jijiida lagu bursanayo no ana kaas habeen meehen kaas malcadi meehen malcadi kaas siyaasad waxa ano fiidiyowga habeen isoo gaaray dagaal meehen horta ma dagaal gashay ma kula kaftamay xisaab malaha bismillah wiliga ma lagu dilay may gaad ma maahan qof face to face qof ii dilay because wajiga hal xatin iska dhaafay liisha waa korka meel wiliga xatin gaarsiin ما انت كلام اركان انا وجهي وجهنا وجهناي او وجهي حتى يريس حتى waxa way حتى ما gaarsiisano اوكي marka dagaalka galis isku diyaarsan may because ana ma uga xal kulma isku diyaarsan ana bajad saana qof idulminayo ismarka jawaabay wala gala en صح كسونا واي ما han isku diyaaris dagaalka lagu sheegayo waay safiican en hadda marka hal mid aan ka codsanayna aniga iyo wili taageerayaashaada iyo asxaabta nagu xiran in dagaalkan aad joojiso maslaxa iyo atoosh baad iska wada cafiso maxaa yeelay qalad waxaa ah inaad maanta intaad soo baxdeen adiga iyo fartuun aad ku weerartiin abaay ma diidan abaayo aniga maanta gabar walaashaya tahay dulman kugu fiirsanayay saaxiibka waxaa la bartaa hal mar hormee ma taqaanaa markaad dhib ku jirto qofka garabkaaga soo istaago iyo saaxiibka runta kuu sheego aniga qofka ku jecel aqwaani wax ku sheego ma dhan fiir ani kaliya maaha meeqa qof ala dayalsan qofka bilaadanka hal qof haduu la dayaalo waxa la isdhaha qofkaan wala gardaran laakiin umadiyo dhan hadii ka soo horjeesata gabar wala horta wareer waaye horta maslaxo wala shay qaliya umadiyo dhan ka soo horjeesata qof walba afkeela galay dadka afkeela galay dadka kala baro okay horta ma taas gooni waaye laakiin maslaxo aniga hal mid aan ku leeyahay waxay tahay abaayoy Soomaalidu waxay dhahdaa dhari hadii uu farabato oo food xaraariya hadalna wuxuu amaan yahay inta afkaaga uu ku jiro hadoo marka soo baxo adiga uma aramisid qofka agtaada joogan oo ma aramiyo adiga waxa tahay marwo shalay aad guursatay waxa ku qabo wiil la yaqaan adigana waxa tahay gabar la yaqaan hadii iban ay dhacdo wax adiga qalad aad u aragtay aad aragto waxa la sameeyaa falcelin ah qofka agagaarkaaga joogo inaad dhahdo saana dhacday maxaan ka sameeyaa inta iska soo fadhiisato kaliya go'aan ha ka qaadanin waxa laga eray afkaaga ka soo baxay inuu qalad u arka laga yaabaa horta maanta waxaad ku qaldantiin adiga iyo fartoon in atoosh meeshiisa u tagtaan laba in atoosh la dagaashin labadaas baa ku qaldantiin fartoon hadda arkana u sheega adigana hadda ku sheega hadda maslaxa la dagaal lahayd waxaan ilaa dumar isliyihiin oo iyaga is af yaqaano oo midda kale tan wixii isdhahayaan waba gooni laakiin waxaan diidaa adigoo dumar ah fartoon dumar ah in aad nin rag oo boqolow ah aad dagaashaan haddii maanta oo idinka gardaran yahay dadka gardaran tihiin haddaad wax ku dhufataan hadda wax idinku dhuftaba intaba asaga eed u imaanaysaa ma fahantay hadda maanta ilaahay markaasi haddii ay wax dhankiisa ka imaaday ay kugu dhici lahaayeen ma loo fiirin lahayn qaabka hadda sheekada loo fiirinayo way isbedeli lahayd waxaa la ilahaa gabar heer saas ka dhalatay ah wax ku dhufatay gabar waaye maxaa kuugay garta mar walba waxaa la sii lahaa gabadha adinku waa saxan tihiin in la aflagaadeeya ma ahayn laakiin qalad waxaad ku leedihiin goob kiisa ganacsi taas waa laga wada fadhiisanaa waa laga wada hadlaa waa lagaa celinaa maslaxa kuma soo gaarayso ee adiga ma tahay gabar la ceshan karo oo dagaalkaa ma joojinay codsi waa weliba dagaalkan hal mid ku joogsanaa afkii hooyada ku ceysay inuu ku raaligiisa horta hooyada waa anaga hooyadeen ana hooyada waa hadlay meeshaas ku joogsanaa maalinta hooyada raaligeliso bisul dagaalkaas ku joogsanaa jin iyo jaan wax kasta dila soo aqriyo ku joogsanaa maalinta hooyada afkii hooyada ku ceysay war anaa ceysay roonkeer hooyada afkii ku ceysay waa inuu ku raalgelisaa fiidiyowga soo duuban yahay hooyada aflagaadeynayso yes meel kastuu yaalaa waa in afkaas way ka shaleynay ama hooyada haddii ay raaligeliso waxba igama gelin okay adina catosh ma raaligelinaysaa marka ani maxaa asaa isoo caayay soo raaligelinaa ma dagaalka weerarka ku qaday maanta asaa bilaaway asaa hanjabaad bilaaway inuu raaligeliyaa sababta raaligeliyaa maxay tahay asaa bilaaway nin rag soo maaha asaa bilaaway maxaa codadkiisa dhanaa lahayaa asoo ku caynayaa asoo ceynayo waa inuu asii raaligeliyaa okay
muuqaalkan kuba dheeraanayno waa wareysi aan ugu talagalay inaan ka qaado Miss Wall arrinta ku saabsaneed maslaxa iyo atoosh iyo iida iyo weerarka maanta lagu qaaday waad ujeedin xal meesha uu marayo iyo sida arrinta ay tahay aniga qaabka ugu fiicnaa waxa ay ahayd arrintan lagu soo gabagabayn karo in aan labadooda dhexdooda aan galno si aan loo heshiisiino laakiin waxa ay leedahay qofka la aflagaadiya aniga maahane waa hooyadii aniga ee dhashay hooyana qof walba oo ka kululaanaya laakiin waxaan dhihi lahaa hooyada in aflagaada uma qalanta mana laga aflagaadin kara sababtoo ah waxayba dhashay gabadhan boqorada quruxda badan hooyada waa anaga hooyadeena dhammaanay hooyo noo wada tahay hooyo sideeda waa hooyo maslaxo midaas oo ku qaldan tahay inaad hooyadeeda aflagaadayso haddii maqal uu jiro waxaan kaa codsan lahayn inaad marka hore hooyadaas aflagaadaysay aad raaligeliso si arrintan aan usoo gabagabayno asxaabteeda qaaliga aad baad u mahadsantihiin waraysi midkaan lamida intaan kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa saasiyo nabadgeliyo wasalaamantiin